Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal dhammaantiin soo dhowaada halkaad nagala socotaan waa Ciimo Production Channel saaxiibayaal markuu horeysaday tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe idhaahdo share idhaahdo saaxiibayaal soo dhowaada waa gabar Amerikaan ah oo ganacsi ku bilowday $500 Mareykanka ah kana faa'iiday $1 bilyan Mareykanka ah. Heather Scott waa ganacsato ka macaashtay agabka dumarka ee quruxda u xidhaan seegeeda oo shaqo ku maqan ayay garwaaqsatay inay furato ganacsi ayada xorey u tahay saaxiibayaal. Waxay jiiftay gurigeeda oo ku yaala magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waxayna la daalaacaysay cunug caloosheeda ku jira waxayna bilowday inay sameyso agabka ay haweenka quruxda u xidhaan. Sanadkii 2002 Scott waxay jirtay 28 sano waxayna haysatay lacag ay meel dhigatay oo gaaraysa $500 oo Mareykanka ah. Intaa kadib waxay samaysay ganacsi ay ku furatay $500 Mareykanka ah. Markii ay dhashay waxay go'aansatay Heather Scott inay dibadda u baxdo si ay ugu ganacsato agabka ay haweenka quruxda u xidhaan oo ka mid yahay dhagaha dumarka ay xidhaan. Waxay tiri markii bilaabay ganacsigan waxaan dhameeyay jaamacadda heerka koowaad beddelkeeda waxaan samaystay ganacsi. Waxa ay tiri ayadoo hadalkeeda sii wado markii aan bilaabay ganacsigayga dheemanka waxaan ku ridi jiray baakado yaryar oo aan la hor istaagi jiray guri ka guri. Maalinkii ugu horreysayna waan ka faa'iiday. Scott waxay ku dhalatay kuna soo barbaartay gobolka Texas. Markii ay jirtay 18 sano waxay ku biirtay jaamacad ku taalla Texas balse sanado kadib waxay ka baxday jaamacaddii si ay u raacdo wiil ay jeclaatay. Nolosheedana waxay ku soo hartay inay ku soo noolaato magaalada Austin ee gobolka Texas ee dalka Mareykanka. Waxa ay samaysatay ganacsi u gaar ah muddo 10 sano ah kadib. Waxayna samaysay koofiyadaha ay xirtaan dadka qalliinka dhanka kansarka ah. Arrintaa waxaa ku dhiirigeliyay nin hooyadeed ay wada joogeen oo la xanuunsanaa cudurka kansarka waxayna ugu deeqday hal koofiyad. Asxaabey sheekada saan u soo badiyo subscribe saar sheekooyin badan oo xiiso leh oo soo wada marka mahadsanid saaxiib.